ciidamada booliiska degmada Buurtile oo gudanaya waajibaadkooda qaranaya waxay howlgallo ku soo qabqabteen shakhsiyaad ku fognaa khalkhalgelinta amniga bulshada iyo kuwa isticmaalaya kana ganacsanaya maandooriyaha khamriga iyo xashiishka waxaana ay ciidan ku soo hortaageen maxkamadda degmada Buurtile si loo mariyo xukun ciqaabeedka ay mutaysteen maamulka laamaha amniga iyo garsoorka degmada Buurtile ayaa waxay maandooriyihii ku gubeen goob fagaara ah oo goobjoog ahaayeen shacabka degmada Buurtile سعيد عبد كرتون تليها سليقة بوليس كدقمة بورتيلي أيا كور بحيها وقلادة عيدن كوحان وشعب ككولادة دارمي إني حوجيان وذا شغين تا ما أنت هالكان وادو تيدانو وحان كوسا باندقناي هولقالكي عيدن كبوليس كدقمة بورتيلي خمري يالو روسا غبطي خمري دا شنن دور ميلاد بالغا كلا كياناي شنن باودي شانتنن غيبو waxay ka keentay gobolka Mudug iyo dhinaca Itoobiya qaybna waxay samaysaa marka loo keeno iyay gada waxaan rabaa dadweynaha degmada Buurtile inaan u sheego magaalada khamrida soo galaysa khamrida in la diriro naf iyo maalba in la geliyo cid allaale cid lagu arko in la soo qabto ciidanka booliiska in la wadaago waxaan doonaynaa reer Buurtile digniinta runta inay qaataan taas reer Buurtile leenahay maamulka cusub ee degmada Buurtile waan leenahay godoobiye indhihiina aad ku aragtaan waa khamridii labaad hadda intaad joogteen oo aan soo qabanay waxa ku jira xashiishki waxaan leenahay oo codsanaynaa ciidanka booliiska howlgalkiisa iyo shaqadiisa in la bajibaaro oo la tayeeyo gudoomiyaha maxkamadda degmada Buurtile Salaad Cabdirasaaq ayaa sheegay in dhammaan eedeysanayaashu maxkamadda ka hor qirteen falalkii lagu soo qabqabtay maxkamadduna ay xukun ku ridi doonto aliha degmada uu sheegay weeye wuxuu hor keenay maxkamadda khamridaas iyo nimankii eedeysanaha lagu soo qabtay maxkamadda horta waxay ka qirteen in kiiska ayagu ay asal u ahaayeen cabayeen kagana gacsanayeen iyo xashiishkay waxa la midka taas darteed maxkamaddu xukun ay ku ridaysaa insha Allah dhageysigooda حبس بان لو قاضي dadweynaha degmada Buurtile waxaan uga digaynaa inay iska ilaashaan xayalahaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu xarimay gudoomiyaha degmada Buurtile Sayid Maxamuud Xirsi ayaa ciidanka booliiska degmada Buurtile ku bogaadiyay shaqada ay qabteen waxaana uu shacabka kula dardaarmay inaysan qof dambiila ka daba tagin isla markaana ay sharciga garab ka siiyaan ciidanka degmada iyo dhammaan shacabweynaha reer Buurtile oo ka soo qayb galay maxkamadda daawashada maxkamadda iyo gubidda iyo jajabinta khamridan lagu soo qabtay degmada runtii ciidanku dadaal dheer bay muujiyeen aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waa intii loo igmaday waxaan leenahay waa intaas uga sii dhawaataan waan idinku bogaadinaynaa waan idinku garab istaagaynaa haddii Ilaahay yiraahdo balanteen waxa weeye wax walba oo degmada dib u keenaya ama khamri ha ahaato ama xashiish ha ahaato ama wax kale ha ahaato in dadku ay gacmaha iska qabsadaan booliiska lagala shaqeeyo maamulka lagala shaqeeyo dadkii lagu soo qabtay kiiskan وانا الحكومة دونا إن شاء الله عقابته دونا وامر دونا وحنا وصل شيء ذي ذكر ريبورتين إن أيسان ودودين كذا إيمان لحالين بل إجرب كوسيان دولة بينتنا قار كم إذا وضيعش وحجرت كيد الرياضة دقمة بورتيلي أي معمول كي عيدا كبوليس كدقمة بورتيلي وجمع هذا العادية شقة بلارنا يقبتين يجون عاديين يمروا البقرة بتاعيهم بوليس كهلا لا شقيه هدي دتكو aad ula shaqeeyo booliska wax ina ku dhex dhuuman kara ma jiraan khamri iyo xashiishad iyo tuugo iyo wax kasta oo ina ku dhex dhuuman kara ma jiraan markii ganacsatadii iyo waxgaradkii iyo dadweynaha iyo maamul aan isku xirannahay xabad baan u qaban karnaa waxaan leenahay reer Buurtile waan iska xaaraamayna waxaas degmadeenna way xumaynaysaa waa wax dhaqan xun waa wax xun guuleysa Saajid Jaamac warbaahinta dawladda Puntland Buurtile